الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشان قيمها يقايالهو ميل الباد نقد داونيسان قوب الباد نداونيسانبا كسو دوادا برنامجكي dhalinyarada oo alaaba si toos ah ugu daawanaysan telefishinka caalamiga KG Channel xaruntiisa koowaad ee gudaha magaalada Baydhabo. Barnaamijkan waa barnaamijkii dhalinyarada tabintiisa tooskana 30 daqiiqo uu hawada ku jiro. Barnaamijka waxaa si toos ah idin la socodsiin doona anigoo ah Maxamed Abdirxeen Maxamed. barnaamijka ayaa ah barnaamij inta badan aynu ku falaqeyno amuuraha hadba dhalinyarada ay leeyihiin ama waxyaabaha inta badan ay saameyntooda ay tahay. barnaamijka maanta waxaa marti ugu ah Firdawso Cabdiqaadir oo kamid ah dhalinyarada ku nool gudaha magaalada San Baydhabo. barnaamijka maanta qodobkan ku falaqeyn doona ayaa waxa uu yahay aalada social media dumarka saameyn intee leeg ay ku leeyihiin. marka ugu horeysa Firdawso ku soo dhawow TV-ga dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xaruntiisa koowaad ee gudaha magaalada Tan ee Baydhabo. waan ku dhawahay Maxamed. Firdawso sidoo aragtaa barnaamijkan loogu magac daray barnaamijka dhalinyarada oo inta badan ka baxa TV-ga KG Channel xaruntiisa koowaad. barnaamij aad u wanaagsan weeye. haddii aan ku weydiiyo su-aasha koowaad ee barnaamijka haddii aan si amba qaadno bal aalada social media dumarka horta ma ku badan yihiin mise way ku yar yihiin? way ku badan yihiin. maxay tahay caqabadaha inta badan dumarka ay kala kulmi karaan aalada social media? waxyaabo badan. waxaa kamid ah adigoo markaa noo bulshada usii biyaaninaya. waxaa kamid ah sida sawirada oo kale fiidiyoada la soo dhiganayo intaasaa kamid ah. ma jirtaa dhibaatooyin badan ama faa'iido ayaga ay ka heli karaan xilliyada ay isticmaalayaan? uma malaynaya inay faa'iido laga helayo waayo qof dumar oo sawirkeeda meel dhigatay laguma sugayo inay faa'iido ka hesho. inta badan dhalinyarada dumarka waxay ku eedayaan in sawiro ayaga ay leeyihiin inay Facebook ay soo dhigaan ay leeyihiin macnaha waxaan ahay qof goordoona. bal ka waran arrintaas dumarka saameyn ma ku leedahay? waa ku leedahay waayo calafka meel ku jira ilaaha og sama haddaan banaanka is soo dhigo uma malaynaya inaan ku helayo ani sidaa. haweenka oo kaleeto waxyaabahaas oo kaleeto sameynaya ma sawiradooda mise waa sawiro kale oo dad kale ay kasoo xiganayaan? laga yaaba inay ku wada yihiin oo aysa ahayn kuwo kale ay meel ka keensadeen. maxaa taa lagu ogaan karaa inkastoo aad dhahday dadka sawiradooda soo dhigayo inkastoo sawirada ayaga aysan lahayn oo kuwo kale yihiin? haddii ayaga aysan lahayn maysa dhihi lahayn soo maaha gurdoona ahay waayo qof kale iskale soo maaha. haddii lala soo xiriiray ilaa qoftaas dhowti waxaa imaanaya meesha isdabagal weyn marka uma malaynaya mid ah. waayadan dambe haweenka ama dumarka inta badan ma ku badan yihiin aaladan oo macnaha yani zaaid ma u isticmaalaan mise xilliyadii hore iyo hadda kabay ku yariin ama ay ku badan yihiin? may hadday ku badan yihiin waqtigii hore yaraayeen. hadda boqolkiiba ilaa iyo meeqa qof ay isticmaali karta adigaas leeda markaad qiyaasid? ilaa 80. okay xilliyada inta badan dumarka isticmaala aalada Facebook ma waqtiyo kala duwan miyaa jira mise waxaa waay xilli walba sida dhalinyarada oo kaleeto rag oo kale u isticmaalaan? sida ila tahay waqti walba kuwa isticmaalayaan sida dhalinyarada oo kale waayo iyadana waa qof dhalinyaro ah soo maaha marka way ku isticmaalaysaa. Firdawso aaladan social mediaha qof walbo ayaa isticmaalo. inta badan dhalinyarada way isku bartaan ayadoo wadamo kala fogay joogaan. ma jirtaa qofka kale markuu barto kalsooni ilaa intee leeg uu qaadi karaa? for example gabadha markay wiilka barato kale weligoodaan aan is arkin ama ay kala fog yihiin oo kaleeto. wallahi kalsooni wanaagsan qof walba suu u bartay dabeecadda iskula dhaqmayaan uu yahay soo maaha. laakiin sooma adka qof muuqiisa weli aadan arkin xitaa suurtagal ay tahay inaadan isku wadan aadan joogin oo meel kale uu joogo. kalsooni ilaa intee leeg marka meeshaas adiga u qaadi kartaa? soo lagama yaabo in hesitated ay ku gasho macnaha yani kalsooni darro qofkaan kaaga imaan karta? way imaan kartaa balse laakiin kalsoonidana way ka dhalan kartaa isagoo maqan yahayba ka dhalan kartaa soo maaha. dadka qaar waxay sameeyeen inta badan ayagoo weli aanay saakin in ay wadamo kale ay isugu tagaan ay is-aaminaan ay isbooqdaan oo kale ama isku guursadaan oo kale. ma jiraan dad asxaabtaada ah oo aaladan isku bartay haddana isku guursaday? may ma jiraan. okay wax hadda adiga maqashay oo kale ama xitaa iyo parentskaaga ama familka oo kale kamid ah ama asxaabtaada oo kale kamid ah ama sheekahaan adigaada maqashay? ilaan baraha bulshada inta badan waxyaaba badanaa lagu falaqeeya. sax way jiraan waana maqlay laakiin wax oo familygayga ama xaggeena ka saabsan maana arag laakiin waan maqlay soo maaha. inta badan Firdawso waxaa lasoo dhigaa sawiro kala duwan oo ayadoo midabo kala duwan xambaarsan. dad waxaa jira inay commenta sawirada ayagoo aysan garanaynin xitaa inay ka bixiyaan
dadna like inay saaraan oo macnaha yani sawirka inay ka hadlaan dadna like kaliya saaraan adiga ma dadka ka bixiyaa tahay oo sawirada fiiriya mise dadka waxaa tahay oo kaliya inay eegaan oo kaliya kor u soconaan waan eegaan waan ka socdaa laakiin waxba kama baxsadaan maxay tahay sababta laakiin ilaa inta badan dadka markii 90% la qiimeeyo waxay u badan shay meel yaala markay arkaan inay wax ay ka bixiyaan xitaa xumaan iyo samaan ayagoo ka kala turjumaya waxa meesha ka yimid ma aqaan Soomaa marka hore aan ka bixiyo ma xuma waxa sabab baa loo baahan yahay meesha in sabab loo soo dhigto waayo wax badan oo waxaa jiraan sabab aan lahayn oo la soo dhiganaya oo la isaga hadlayo haddana wuxuu noqdayba wax walba ciyaar in laga soo dhigto oo meel walba la soo dhigo wax walba marka sidaas ayaan uga tagayaa waxaa jira aalado fara badan sida hadda Facebook oo kale WhatsApp oo kale email oo kale Twitter oo kale adihan markaa fiirisid aaladada ugu jeceshahay ama ugu isticmaal badan tahay intaad adiga aad chance aad leedahay aad isku mashquulinaysid WhatsApp iyo email oo kale maxaa laakiin aalada kale ma kaaga duwan yihiin mise zaaid way iga duwan yihiin okay maxaad ku dooratay marka waxaan ku doortay intaasaan jeclahay Soomaa qaarkaas kale wax kale oo Facebook sida Facebook oo kale waxaa la soo dhigayaa wax aan loo baahnayn waxyaabo qaar oo waxaa la soo dhigayaa sida aad daytka dhawaajinaysa oo kale guurdoona ahay gabdho dhahaya sidaa darteed ayaan u isticmaalaya gabdhaha sawirada soo dhigayo kaleeto ay leeyihiin annaga waxaan nahay dad mustaqbal raadinaya ma la isdhihi karaa waa ka dhab mise waa dad inta badan siyaabo kala duwan u adeegsanaya waayo waxaad arkaysaa markaad sawirkii aad sii tixraacdid qof raga comment ka bixin aad arkaysaa oo ku qoraya numberkiisa meeshaas marka dhalinyaradaas ma kuwa lasoo wacaa mise waxaa waaye meesha waa laskaga qoraa oo keliya oo leegi iyo baa lagu raadsadaa hay uma malaynaya in lasoo wacayo waayo qofta rag maysa weyn soo maaha markay Facebook soo dhigayso magaalada ay joogtaaba rag gurdoona joogaan soo maaha haddaan is soo dhiga Facebooka sida aan ku helayo uma malaynaya inaan ku helayo Facebooka dhexdiisa nin oo gurdoona waayo magaalada ay joogtaaba laga helayaa soo maaha haddaan khadka is soo dhigo uma malaynaya inaan ku helayo dumarka hadartaan markaa fiirisid horta waayidii hore iyo hadda iyay u badan yihiin sawirada noocaas oo kale soo dhigaan ileen hadba waxbaa la xiisaya soo maaha hadday u badan yihiin xilligan dambe waqtigan dambe ma kalsooni darrada yaraatay mise guurkii ayaa inta badan ba laisku fahmi waayey maxaa sababay aad adiga aad is leedahay ka dumar ahaan adigoo kasoo xiganaya maxaa is leedahay arrintaa way sababi kartaa ileen wax walbo waxun baa sababa soo maaha maxaa is leedahay kalsooni darra horta ma sababayso waxaa laga yaabaa inay gabadha ay ku ciyaarayso sawirkeeda inta iska soo dhigato ay iska tijaabinayso un wax meesha wuxuu uga soo bixi doonaa gabdhaha in badanna ay jecel yihiin hamigooda dadka dibadda jooga oo sida yurubta dadka ku maqan oo kale nasiib un bay u gelayaan soo maaha sawiradooda ay usoo dhiganayaan saasay rabtaa haddii qof qurbo jooga aad dooratay weli muuqaalkiisa ama dabeecadiisa oo kale aadan weli garanaynin aad ku dooratay meesha uu joogo wuxuu ku joogana aadan ogeyn dumarka soo dhibaato badan kagama imaanayso in ay arrimahaas oo kaleeta ay sameeyaan oo qofka meel fog jooga inay ku dhiiradaan inay guursadaan waa uga imaanaysaa sida hadda waxaad arkaysaa gabdho oo da-yar aad arkaysaa waraan 2 nin 3 nin oo kale ay soo kala tageen ayagoo marka aad weydiisid siyaabaha qofkaas ay ku raacaan ay tahay in qofka qurbaha kaleeto uu joogo kaleeto inay qofka markiisa hore isku barteen aaladan social mediaha waxyaabo badan aysan isgaranaynin waqti yar oo kale isgaranayeen ma la isdhihi karaa kalsoonida dhabta aheedoo qofka biniaadanka ilaahay uu ku manaysa laabtiisa dadka inta badan way ka nabad guurtay way jirtaa mida aan sax gabadha markii nin noocaas oo kaleeta ay guursanayso ka dareen ahaan ileen adiga dumar ahee maantana kolley dumarka xaggoodina marti noogu ah ka dareen ahaan maxay isdhihi kartaa ileen qofkan weligeeda maysan arkeen wuxuuna joogaa waddan fog waxaa suurtagal ah haddii ay u suurtagasho inay aragto sawiradiisa iyo waxyaabo kaleeto la mid ah ama inuu lifeka oo kaleeto uu soo galo kalsooni marka intee leeg ay u qaadi kartaa qofkaas oo meel fog jiro dabeecadiisana aysan garanaynin oo ay doonayso inay nolosheeda inay ku aaminto soo kalsooni ma noqonaya soomaha labada qof waayo qofkan waa qof kula jooga dabeecadiisa waa baranaysaa kalsooninima meeshan ka dhalanaysa waqti walba waa la sarkaya balse laakiin qofka waa qof qurbo ku maqan sida khadka oo kale la iska soo wacaya in la iskala hadlo maahan uma malaynaya kalsooni rasmi inaysa ka dhalanayso meesha ileen waxay u baahan tahay horta in lais helo waxaa ka horeysa horta in lais aamino bal sideed u aragtaa guurka dumarka ay ugu dhiiranayaan raggaas ay ku barteen aalada social mediaha oo haddana raggii qofkii asigoo meel fog jiro oo kaleeto guurkiisa ay ku dhiiranayaan
maxaa la dhihi karaa guurkaas oo kaleeto muxuu kuna noqon karaa? wallahi uma malaynayo guur oo sidaa usii dhisnaanaya ilama ahan ani. ilan guurkii hore haddii aan kasoo xigano waayidii hore gabadha waa la doonin jiray in gurigeeda familkeeda la weydiiyo waxyaaba badan ay kasoo wareegato, laakiin qofkan asoo meesha jiro inuu soo hadla gabadha wada dhameystaan aabihii uusan garanaynin, xitaa waxaa laga yaabaa odayga inuusan hindhaha taa suurtagelinaynin iftiinkan inuu wax ku arko kale, qof meel fog jirana gabadhiisu in haddana uu ku aaminayo kaleeto. gabadhiiso iyo familkeeda soo lagama yaabo inay caqabada ama dhibaatooyin ay kala soo kulmi karaan guurkaas sida fudud ay gabadha ay doonayso qofkaas inay ku guursato, haddana aan marnaba aan loo aabiyeelino waayadan dambe ay kusoo badanaysa geyiga soomaalida ay degto gaar ahaan soomaaliya. maxamedow way jirtaa, balse laakiin meesha waxaa ka imaanaya kalsoonida labadaa qof hadday isku gartaan. nimankana waa iska nasiib, mid xun iyo mid fiicanaa ku jira, waayo gabadha nasiibkeeda hadday markii horeba ay ka hesho laga yaabo midka fiican inuu ilaahay uga dhigo sida ay ku raacdo. kan xunna hadduu xun yahay iyadaa og, markii meesha ay is arkaan unbay ka war keeni kartaa un soo maaha. balse laakiin uma malaynayaan in nasiibka xagga uu aada ugu kalsoon yahay dadka inta jooga, inay kaga kalsooni wanaagsan yihiin dadka jooga meeshooda. dumarka inta badan waxaa lagu xantaa in ay ragga ay ka isbiirad badan yihiin, sida hadda gabadha marka ay nin kaleeto ninka markuu naagtiisa naag kale wala guursadoo kale, sida qoftan ugu fudud oo damiirkeeda u kacayo kale. ilan qofkii haddii cunug yar xataa hadalkaa uu sheego waxaa laga yaabaa inay hadday xanuunsanta xataa inay sare way istaagto. marka soo lagama yaabo in qofkaas meeshaas jooga caafimaadkiisa xitaa aysan ka warqabin, nolosha uu ku nool yahay in uu ku nool yahay nolol dhibaato badan ayadana saameyn badan ay ku yeelan doonto. gabadhan ay ku dhiirinayso malaha gabadha saaxiibo iyo asxaab dad ay la sheergaraynayso ama ay la tashanayso kaleeto, mise gabdhaha inta badan sirta iskuma sheegtaanoo bal ayaga uu keliya hawsha daadahaysta. way leeyihiin, wayna la tashtaan, balse laakiinse waxaan ila tahay inuu shaydaan ka shaqeynayo meesha. maseerka waxa keenayo waa shaydaan, hal unbaa toosan. gabdhaha badanaa markay isla tashanayaan kuwana way kugu dhiirinayaan oo kuleeyihiin ninkaaga wuu gursaday maxaa u fadhidaa maa warqadaada ka qaadatid oo furiin ka dalbatid. way jiraan kuwana ilaahaba toosiyo waaba u degan yihiin oo waaba kuwa u safraya gurigooda. firdaws inta badan dumarka markay tusaale yar haddii aan soo qaato markii ay doonayeen inay aadaan ama aroos oo kale ama waxyaabaha lamidka oo kale, waa dad inta badan isu soo diga isu soo telefon garaya ay dhahaan ina heblayo maalin hebel meesha isku diyaari balse ay u aadaan. arrimaha guurka kaleeto markii la gaaro sida rag oo kale ma wada tashtaan oo ma dhahan qofkaas raba inaan guursado dabeecadiisu kaleeto in dhaqanka qofka inay ka hadasho kale, mise gabadha keligeed ayadaa go-aanka qaadato qofta kaleeto maba aaminsan. horta dhexdooda ma tahay kuwa kalsooni isku qaba? gabadha saaxiibteeda intii aan la gaarina waxaaba jooga soo ma ahan maamo, iyaday la saaxiibi kartaa intaysa gabar kale ay saadin. waxaan aaminsanahay ani gabadha intay gabar kale la saaxiibi lahayd inay hooyadeed ay saaxiib ka dhigato marna waalidkeed ka dhigato oo iyada ay la tashato. firdaws dareenka dhabta oo ilaahay rabbi uu ku manaysay dadka aadanaha ah, waalidka horta iyo gabadhiisa ama caruurtiisa horta waa inay horta ay ka dhexayso wax la yidhahdo kalsooni. caruurta ma ka keensadaan waalidiinta xilligan in ay kalsooni ay ku beeraan ay aabiyaashooda ama hooyooyinkooda oo kale in ay la tashtaan? may maxamedow, waagii hore iyo hadda labay kala tahay. hadda waalidka hadduu dhaho maxaa saan loo yeelay waxaa laga yaabaa in lagu qayliyo la yihahda maxaa kaa kuseeya maxaa kaa galay in la dhaho, balse laakiin waagii hore waa la isku kalsoonaa. gabadh iyo waalidkeeda aaday isugu kalsoonaayeen, wiil iyo aabiis way isku kalsoonaayeen. hadda ilama ahan ani badanaana waa arkay dad aan isku kalsooneyn oo waalidkeeda oo ku qaylinaya oo le waxba kaama gelin waxaan sameynayo. way dhacdaa middaa meeshii ay ka aamini lahayd gabadha saaxiibadeeda ah, soo kama fiicna in hooyadeeda oo noloshana u leh kaga soo horeysay oo haddana u leh experience ama khibrad, soo kama wanaagsana in ay arrinta ayada isku qari lahayd ama qof kaleeto dumar oo ayadoo kaleeta ah noloshana waxba aysan kasoo arkin meesha ay la wadaagi lahayd. soo kama wanaagsana hooyadeeda inay la wadaagto. maxaa diiday gabadha inay u sheegto maamadeeda? aad iyo aad way ku wanaagsan tahay, waana midda u fiican sooma in ay maamadeeda ay kula tashato, hooyad marna ay saaxiib ka dhigato marna waalid ay u xishmayso.
wax walba ay sameynaysana inay iyada la socoto oo ay ogaato aad iyo aad ay ugu wanaagsan tahay mid ah balse laakiin waayahan dambe ma ahan gabadha hooyada lama tashato ikhtiyaarkeeday dhaqataa qof walba iyo wuxuu leeyahay dantiisa waxaa arkaysaa dad leh anna magaaladeeda gees ka gelaya adna dhinacaaga ka gal marka ilama ahan aniga gabdhaha sanadkan inay waalidka ka amar qaadanayaan maxaa isleedahay marka mawaalidiinta xaggooda caqabada ay ka jirtaa mise dhanka dhalinyarada xaggoodayba waxay ka jirtaaba in waalidka ay fahmi la-aysan yihiin maxay tahay caqabadaas adigaa isleedahay oo isfahan darada meesha ka dhalata waa waalidka ma aha waxaa weeye xagga dhalinyarada waa arrin inta badan dhalinyarada ay saameyn badan ay ku leedahay guurka aan inta badan waalidka aan lagala tashanaynin oo marnaba aan loo aabayeelaynin gabadha markii ay guursato kaleeto ma laisdhihi karaa dhibaatooyin badan ay kala kulmi kartaa inkastoo markii hore waalidkii gabadha soo barbaariyey wadadiisa quruxda badneed aan la soo marin oo gabadha marka horeba lagu bartay aaladahan internationalka ah oo qofka isigoo gurigiisa jooga qofka kaleeto sidoo doona ula sheekeysanayo soo lagama yaabo gabadhi in caqabado badan ay kala kulanta way kala kulmaysaa waayo meesha waa lagaa waayay aragsanaa hooyada ayada ay ku dhashay soo maaha wax walba way soo martay wax walba haddii aan ayada la ogeysiin dhibaato badanaa ka imaanaysa waayo waalidka wax walba wuu ogyahay wax walbana wuu yaqaanaa soo maaha marka dhibaatooyin aad iyo aad u badanaa ka imaanaya meesha gabdhaha inta badan ma xiriir ay la sameeyeen aabaho kale mise hooyada kee las dhihi karaa inta badan xoogaa way kaga rooyin hooyada waayo gabar iyo waxaa la yidhi waa hooyadeeda wiil yaabiis marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha in ay u bataan xagga waalidka oo hooyooyinka weliba ay la saaxiibaan intay gabar kale la saaxiibi lahayd firdauso waayadian dambe guud ahaan geeska africa waxaa aad iyo aad ugu badan aaladaha internationalka zaidka loo isticmaalayo intooda badana laisku guursadaa lasoo dhigo sawiro ama waxyaabaha inta badan ka gedisan waxyaabihii horeeto oo dadka qaarkooda cajab gelinayo qaarkoodana layaab ku beeraya qisooyinka qaar lagu soo qoranayo dadka ay ku reebayso saameyn aad iyo aad u ballaaran oo qofka ay ku noqonayso mid urkutaala ah ka dhalinyaro ahaan ka firdows ahaan adigoo fiirinaya bal aaladahan internationalka hadda soo baxay dhalinyaro ahaan ma faa-iiday ku qabaan mise dhibaatooyin aad jiro dhalinyarada inta badan aaladan xambaarsan oo mar walba ay ka qabsataa wallaahi maxamed oo si haddii loo eego faa-iida ayaa ku jirta si haddii dhinaca loo eegana dhibaataa ku jirta maxay ta adigoo noo sharaxaya faa-iida ay ku qabaan iyo khasaaraha inta badan kasoo gaara aaladaas markay isticmaalayaan waxaa arkaysaa waxyaabo aan loo baahnayn in lasoo dhigo meesha sida sawirada oo kale videoyaal oo lasoo dhiganayo waxyaabo badan oo aan lasoo tirikoobi karin ayaa ku jira meesha qaybna haddii loo eego faa-iidooyin badanaa ka helaysaa oo wax badanaa ka faa-iidaysaa balse laakiin ilama ahan ani waagii hore inay ka wacantaa u malaynayaan dhalinyarada inta badan inta xumaanta u adeegsataa iyo inta samaha u isticmaashaa markii lasu qiimeeyo oo laisbarbardhigo kale yaa isdhihi kartaa way ay badan yihiin wayna ka tayi fiican yihiin wallahi inta xumaanta soo dhigaysa aada u badan laakiinse inta kale oo soo dhigaysaa wax fiican ayaa aada u tayo badan waayadan dambe inta badan dhalinyarada waxay soo dhigaan ay u badan yihiin sida sawirada oo kale inay goobaha magaalada ka baxsan oo kale inay tagaan sawiro kala gedisan ay kusoo galaan ay soo dhigaan oo kale bal sawiradaas ilan qarni walbaba waxbaa la xiiseeyaa fikir ahaan ka firdows ahaan iyo ka dhalinyar ahaanba bal fikir nooca tahriibka oo kale iyo magacyada ugu cusub laleeyahay maxaa lahayaa igu sawir oo kale bal magac ahaan horta u aragta magacaas waxaan arkaa inuu khaldan yahay magac khaldan uu yahay balse uu fiicneen oo magac fiican ma bahanba igu sawir waayo waa wax khaldan soo maaha igu sawir aad iyo aad ay dhib u leedahay in qofka kale for example waxaad arkaysaa baydhabo oo kaleeto inuu joogo kale inuu sawir uu ku gelayo markuu u kaleeto uu tagana sawir kaleeto galo isla markiiba baraha bulshada uu soo dhigayo oo kaleeto qofkaas muxuu ka faa-iidi karaa maxaa uu is leedahay ku kalsooni geliy inuu sidaa uu sabradii ugu soo shargaray aalada social media wallahi wax uu faa-iida uu ka helayo ma lahan soo maaha waayo waa sawir muuqaaga hadii la arkay sawirkaaga inaad soo dhigto waaba khalad soo maaha dadka qaar xitaa waxay sameeyaan sida ayagoo qabriga oo kale ama qofka markuu dhinto ay raacaan oo kale meydkii ama meesha wixii la aasayo oo kaleeto inay sawiro ay ku galaan soo dhibkeeda ma laha inay qof dhintay oo kale sawiro xaggiisa adiga aad kusoo geshid oo kaleeto social media adiga soo dhigtay qofkii xitaa waxa laga yaaba meydka adigana iska raacday oo keliya
oo faamilkiisana hadhow ay u arkaan ama caqabado ay yani ama culeys xaggaaga ay u arkaan mal dhalinyaro inta badan sawirada sida qaabka daran ay u isticmaalayaan adi ahaan maxaa fikir leedahay wallaahi maxamed oo midaa waa mid aad iyo aad u qaldan mid saxan ma ahan waayo qofkan waa qof meeda asagaba murug haystaa soomaa la xili laga gaaro sawir iyo adduunyada la galo ilama ahan ani in qof xanuunsan laisku sawiro social media lasoo dhigo in qof dhintay laisku sawiro kaleeto maxaa adi ahaan ka aaminsan tahay oo adiga is leedahay fikir ahaan wallaahi aad iyo aad waxaan ka aaminsanahay inay wax qaldan ay yihiin aysa ay fiicneen balse laakiin aan leeyahay dhalinyarada inay iska daayaan waxaa waayo wax fiican ma aha firdaus waxaa jirtaa inta badan dumarka xaggooda markaa fiirisid ayagoo uurle oo kale inay ku dhiiranayaan inay tahriibaan oo ay sameeyaan wadamo kala duwan inay aadaan waad aragtay badda inay dhibaato badan dadka ama dhalinyarada soomaaliyeed ay kala kulmayaan bal dadka ku dhiiranayo dumarkaas maxaa ku koosgareyn karaa inay qof umar uur lahoo kale inay doontaasi ay raacdo ay og tahay inay dhibaato badan ay kala kulmi karto xitaa ay qaban karto fooshii dhabta heedu minaha dhibaatada badnayd wallaahi maxamed oo haddii la eego waxaan leeyahay gabdhaha oo uur kale sida maamooyinka oo kale dhibaato badan ay ka qaban karta soomaali waayo waxaa laga yaabaa inay odageeda dhib kala kulanto ama qoyskeeda dhib kale ay kala kulmayso waxyaabo badan aa ku kalifaya inay tahriibto balse laakiin ma fiicna iyadoo uurle inay tahriibto gabarna tahriib inay baxdo kuma fiicna iyadoo caqabado badan ay kala kulmayaan okay firdaws waxaad ka mid tahay dhalinyarada ama gabdhaha ku nool gudaha magaalada tane baydhabo maliyadiin ururo oo ka dumar ahaan idinkoo markii aada isa caawinaysiin markii dib u dhaco kaleeto markii wadatashi uu jiro oo kale iyo xibnooyin kala duwan oo kale markaad idinka aada samaysanaysiin urur ahaan ka dumar ahaan ma jiraan ururo idinka aad leedihiin oo dumarka xambaarsan inta badana dumarka ka tarjuma oo afkaartoodana ka dhiibta maya maxamed oo ma ana arag waayo hadda wax yar muddo sanad oo kala sanooyin oo kale aan joogaan kuma aana arag magaalada baydhabo okay dumarka markay ay isu wax kasoo baxaan waxbarashadooda sida jaamacadda oo kale iyo iskuulaadka oo kale mase uga imaadaan goobo casharadoodii ay ku falaqeynayaan iyo jadwalkoodii iskuulka iyo ama jaamacaddii oo kaleeto revision ay ku sameynayaan horta ma isu soo raadsan dad isjecel soo raadsana ma yihiin may kuma aan arag mana aan arag oo gabdho isu imaanayo oo waxbarasho laga faa'iidaysanayo oo laleeyahay casharadii iyo wixii aan hore usoo dhiganay bal dib ha loogu celiyo kuma aanag arag maxamed oo magaalada baydhabo dad nahaya sidaa bal haddii iskuulkii ama jaamacaddii aaditaankeedaba laysku raacayo oo in la aadaba qofka keligiisa gabadha keligeedaysan aadayn oo asxaab ay doonaysa inay israacaan bal maxaa is dhihi karaa oo diidi karaa in ay isku imaadaan 2 iyo 3 iyo 4 inay wax ay ka faa'iidaan ama ay faa'iidaystaan wallaahi maxamed oo waxaa u diidaya waxa ay tahay gabdhaha hadday isu bataan oo gabdhaha meel ay ku wada bataan cashar lama xasuusanayo qof walba sheeko gooniya iyo waxaa la gelayaa xan kale oo meel dheer ah marka ilama ahan gabdho badan intay isu yimaadaan oo ka faa'iidaysanaya gobolkan baa kuma aan arag waxyaaba inta badan gabdhaha markay meel ay isugu imaadaan waxyaabay ka sheekaystaan adigoo noo bayaaninaya bulshadana aada u bandhigaysid maxaa kamid ah ka fardoosaan adigoo isdhahay wallaahi waxyaabo badan waxa aan la soo koobi karin weeye balse laakiin aaday ugu tiro badan yihiin magaalada baydhabo ma arkaysid 2 qof oo intay meel isu timaado dhahaya aan ka faa'iidaysano aan magaaladeena horumar gaarsiino gabdho dhahaya maana arag weli inta badan yani waxyaaba kaleetay ka hadlaan okay masha allah waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa fikirkaaga saliimka aad noo soo bandhigays fikirkaaga saliimka aad noo soo bandhigtay daawadayaal weli waxaanu ku guda jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijka dhalinyarada firdaws haddii aan su-aalaha xiga aan ku weydiiyo bal dhalinyaro ahaan maxaa adiga baaq oo aad u jeedinaysaa dadka aalada social mediaha ee sida qaldan ugu isticmaalaan maxaa maanta baaqa u jeedinaysaa maadaama aad marti ku tahay xarunta tv-ga dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan dhihi lahaa inay iska daayaan waxyaabaha qaldan ay aaminsan yihiin oo ay soo dhiganayaan qadadkan ay soo galayaan inay iska daayaan oo sida dhinaca fiican ay wada eegaan dhalinyarada oo horumarka magaaladooda ay ka tashadaan oo ay sida gacmo wada jir way wax ku gooyaan aa layidhi marka inay iska daayaan waxa ay ku mashquulayaan inay dib uga soo laabtaan oo ay horumar kale isgaarsiiyaan
waa tahay daawadayaashan qiimaha qayaalaha oo meel baad naga daawanaysan waxaan intaan aan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii dhalinyarada oo maanta marti ugu hid Firdawso oo kamid ah dhalinyarada ku nool gudaha magaalada Tanbeydhabo barnaamijka 30 daqiiqo oo hawada ku jiray waxaa si toos ah idin socodsiinaya anigoo Maxamed Abdirxiin Maxamed Seerjito daawadayaal tan intaanu markale hawada mid lamid ah barnaamijkan oo kale aan ugu kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.